ina sanbabada muggood uu soo afoofay oo yar qufacay ayuu sidii caadada u ahayd isagoo aan bakhtiinin hortiisa ku muguujiyey mid kalena uu shitay dabadeed fakar dheer ayuu shaarbaha miiqay beerta uu fadhiyo xalay ayuu ilayskii ka gubtay welina muu bedelin السلام عليكم dadka badankoodu ma akhriyaan sheekooyin sababtuna tahay inay u arkaan waqti lumis iyo waxaan faa'iido lahayn laakiin ma aha run waayo akhrinta sheekooyinku waxay ka mid yihiin wadooyinka ugu fudud ee aad ku baran kartid habkaad u noolaan lahayd nolol ka wanaagsan tii aad markii hore ku noolayd ugu horreyn waa maxay sheekafaneedu waa hadal ka janjeera hadalka caadiga ah iskuna suran si habaysan iyadoo ujeedadu tahay in la soo bandhigo qodob taabanaya bulshada sheekadu waa la kabyo xidhiidhsan iyo dhiraandhirin lagu jaangooyey qaabfaneed xiise leh si toos ahna u taabanaysa qalbiga akhristaha amaba dhegaystaha taasoo keenaysa in akhristuhu amaba dhegaystuhu la jaan qaado sheekada bilow ilaa dhammaad sheekadu waa dhacdooyin ka yimi khayaaliga qoraaga haddaba maxay yihiin faa'iidooyinka sheekafaneedu sheekafaneed waxay xoojisaa xirfadda xalinta dhibaatooyinka markaad akhrisanaysid sheeko dadka matalayana ay la kulmaan dhibaatooyin maskaxdaadaad ka shaqaysiinaysaa oo khayaaligaaga ayaa sii saadaalinaya siyaabo ay ugaga gudbi karaan dhibaatooyinkay ku sugan yihiin shaybaadho la sameeyey ayaa sheegay inay maskaxdeennu dhacdooyinka runta ah ee nagu dhaca si lamida uga falceliso dhacdooyinka maalaawaalka ah ee aynu akhrino maskaxdeennu mar walba xagga hore ayay eegtaa oo waxay isku daydaa inay waxyaabo suurtagal ah meelaha banbanaan ku buuxiso waayo ma jeclin in laynagu badhgooyo sheeko socota oo aan dhammaystirnayn waana sababta uu qofi markuu buug sheeko ah soo qaato islamarkaana bilaabo akhrinta sheekadaas uu ugu badnaan 3 maalmood ku dhammeeyo sababtuna keliya ta ay tahay inuu ogaado wixii dhacay dadka sheekooyinka ku jira badanka waxay la kulmaan dhibaatooyin sheekada oo dhamina waxay ka koobantahay sahaminta iyo baadhista xalka mushkiladahaas arrinkanina muhiim buu u yahay xirfadda xalinta dhibaatooyinka xirfaddanina waa xirfad ay lagama maarmaan tahay in laga helo nolosheenna dhabta ah xidhiidhka dadka aynu la leenahay iyo shaqooyinkeennaba sheekafaneedu waxay kaloo naga caawisaa inaynu dadka kale dareenkooda fahanno akhrinta sheekooyinku waxay kuu oggolaadaan inaad ku noolaatid khibradda qof kale maskaxdaadu ma kala saarto waxaad akhridid iyo dhacdooyinka aad la kulantid halka uu jidhkaagu aanu tegi karin bariga dhexe galbeedka fog iyo duni kaloo maala awaal ah maskaxdaadu way tegi kartaa waxaanad heli doontaa xikmadaha dadka maala awaalka ee noloshooda aad la kulantid markaad akhrisanaysid sheeko inaad adigu dhex gashid kabaha qof sheekada ku dhex jira waxay kaa caawinaysaa inaad fahanto dadkii aad noloshaada dhabta ah isku taqaaneen oo waxaad ku tababaranaysay sidaad ula xidhiidhi lahayd dadkii khayaaligaaga ku jiray markaad sheeko akhriyeysay tababarkanina waa mid qiimo iyo wax soo saarba leh akhrinta sheekooyinku waxay wanaajisaa xasuusta sheekooyinku waxay ka mid yihiin hababka ugu fiican ee aad macluumaad ugu wareejin kartid xasuusta fog markaad sheeko akhriyaysid waa inaad xasuusnaatid macluumaadka qaar sida dadka ku jira goobaha dhacdooyinka sheekooyinka sheekada ku dhex jira wadahadallada iyo wixii la mid ah haddaba markaad ku tababartid maskaxdaada u bedelidda macluumaadkan xasuusta fog waxaad wanaajinaysaa xasuustaada guud ahaan shaybaadhaduna waxay soo jeediyeen in akhrinta sheekooyinku iyo wax akhris oo dhammi guud ahaan uu kaa ilaalinayo asqooga sannadahaaga dambe maskaxdaadu waxay la mid tahay muruqyada kale jidhkaaga markastood jimicsiisid waa markastoy si fiican u shaqayn doonto waana sababta ay akhrinta sheekooyinku iyo guud ahaan akhrisku waxtar badan uu u leeyahay wanaajinta xasuusta haddii aad maanta oo dhan shaqaynaysay oo aad daalan tahay amaba shay koo dhacay daraaddii aad u murugaysan tahay sidoo kale diiqad dareemaysid akhrinta sheekooyinku waa meeshii aad ku nasan lahayd islamarkaana murugadii iyo walbahaarkii ku hayay aad isku iloosin kartid markaad filin daawanaysid dadka matalaya filinka iyo goobaha lagu matalayo waa waxyaabo uu diyaariyey directorku laakiin markaad sheekafaneed akhrisanaysid adigaa khayaaligaaga ku sawranaya waana sababtaad ku ilaabisid daalkii iyo murugadii ku haysatayba oo waxaad ka qayb galaysaa dhacdooyinka sheekada
dadkii ku jiray ayaad la dalxiisi doontaa, la farxi doontaa, waxna la cuni doontaa. sidaa daraaddeed markaad sheekooyinka qaar dhammaysid raad bay kugu yeeshaan, kaasoo ah inaad dareentid inuu qof qaali kugu ahaa noloshaada ka baxay. taasina waxay tilmaamaysaa xiisaha ay leeyihiin sheeko-faneedyadu. faa'iidooyinka kale ay leeyihiin sheeko-faneedyadu ayaa ah inaad si fiican ugu baran doontid luqadaha kale iyo inaad ku jeclaan doontid qaybaha kale wax akhriska. muuqaalka maanta intaasuu ku eegi. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.